السلام عليكم asxaabteyda waa idin salaamay waxaan halkan uga jeedaan waa buugaag yaryar oo u diyaariyey dadka bilowga ah oo rabaan luqada inay bartaan English iyo Kiswahili in ay si fudud u fahmaan luqadii isla markaasna iyaga naftooda isbari karaan ama ay ku hadli karaan luqada. waa buugaag yaryar oo aan ugu talagalay dadka in ay si sahlan ay u akhristaan maadaama dadkanaga aynan akhriska ku fiicneen. haddii aad kalaas ku baranaysidna buugaagtaas macalinka ayaa kugu hagi doono. haddaa adiga naft ahaantaada u akhrisanaysana way sahlanta way fududahay. lambar 1 qofka bilowga oo alifka looga bilaabayo wuxuu fahmayaa grammarkii ama naxwihii isku xirka erayada jumladaha sida la isugu xiro shakhsiyaad kala duwan oo ficilada sameynayo. second buugga labaad waxaa weeye waa buug isagana su'aal weydiinta iyo jawaab celinta lagu barto. waa wada hadal ba af Soomaali lagu dhahaa, Kiswahili waa mazungumzo, wada sheekeysi. qofa uu ku salaamaya jawaabta aad bixin lahayd ama su'aal buu ku weydiinaysaa oo wada sheekeysan lahaydeen baa lagu baraa. way turjumanta af Soomaaliyan ku turjumay si aad si fudud ugu fahamtid. buugga saddexaad waxaa weeye waa sheekooyinka gaaban. waxa ugu talagalay qofka asagoo naxwihi baranayo wada hadalkii inuu haddana awood u yeesho akhriskii inuu wax akhriyo. akhriska wuxuu kaa caawinaya in carabkaada kuu jilco luqadana si fudud oo sahlan ugu dhawaaqdid erayadii ama ugu hadashid ayuu kaa caawinaya. in badan dadkanaga kuma baraarugsano akhriska iyo muhiimadiisa. taladeedu waxay tahay inaad akhris fara badan sameysid adoo luqadii baranaya haddana waa inaad wax akhridaa awood u yeelataa inaad wax akhrin kartid. waan kala bixiyey waa kala saaray. sababta u kala saaran waxay tahay saddexdoodaba casharada aan bixiyay ka mid tahay inaad mar baratid grammarkii aad baratid, mar wada hadaladii iyo su'aal weydiinta anaa kula su'aal ku weydiinaya inaad iga jawaabi kartid adiga inta akhrisid soo practice gareysid haddana si practical u sameyno. sheekooyinka waa casharo lagu diray soo akhriya lagu leeyahay habka u akhrinaysid macalinka uu dhageysanaya kadib wuu kaa saxaya waa lagu celcelinaya haddii wixii ku dhiba erayada kulli aan ku celcelinaynaa. marka ardaydeeda aad ayay buugaagtaas u anfaceen. adinkana waxaa idin leeyahay buugaagtaas ma ahan waxa ugu talagalay inaan ka ganacsado, laakiin waxa ugu talagalay inaan dadkayga ka caawiyo baahida ay u qabaan luqadda. waa English iyo Kiswahili labadaba isku mid weeye. marka qof alaalo qofkii u baahan oo luqadda dhib ku qaba waa sida ugu sahlan ood ku baran kartid. waa ogahay buugaag fara badan iyo